waxaa muddo sanad iyo bar ah laga joogaa markii la doortay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligaasi oo ay Soomaaliya ka baxday ololadii doorashadii muddada socotay. hase yeeshee iminka oo dowladda hadda jirta ay u harsan tahay 2 sano iyo dhowr bilood ayaa Soomaaliya waxaa laga dareemayaa ololo doorasho, waxaana dadka qaar ay aaminsan yihiin in olole doorasho oo xilligan dalka ka bilowda ay dowladda ka weecinayso inay diiradda saarto arrimaha horyaalla oo ay ka mid tahay wax ka qabadka ammaanka dalka, dib u dhiska ciidan qaran, dib u heshiisiinta, dib u eegista dastuurka, kobcinta maamul goboleedyada curdunka, iyo sidii loo ambaqaadi lahaa wadahadaladii u dhaxeeyay Muqdisho iyo Hargeysa. sidoo kale waxaa laga yaabaa bay leeyihiin dadku inay ka weecato dowladdu sidii ay u oofin lahayd ama ay u dhamaystir lahayd ballamihii ay qaaday xilligeedii hore doorashada. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo bartamihii bishii August ee sanadkan ka hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay soo wadaan xisbi siyaasadeed oo weyn. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ururada kale ee siyaasadeed aysan isdhigan ayaguna oo ay la yimaadaan xisbiyo. siyaasiyiin hore oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxay ku dhawaaqeen urur siyaasadeed oo weyn oo markaas ay u magac dareen Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda, waxaana taasi laga dheehan karaa xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya oo xisbiyadu ay iminka ku hawlan yihiin doorashada Soomaaliya ka dhici doonta 2021 taasi oo ay muuqato inay u hilhilanayaan dhammaantood.